السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كاني كوري وحن كصبرناي سيدا لو قد جيو كود بلوك كمبيوتر سيدا كله وحن صبرناي أما صقرني برنامج كوري أو أها هيلو وورد. عشر كاني قيبتي سلبات أيام سي وذينا قيبتي سلباتنا وحن كسو قانون دونا sida loo qoro koodadka symbol numberska imankana waxaan qori doonaa koodad number badan ayaan qori doonaa. So waxaan leenahay control shift n si uu page cusub inoo sameeyo horaan usoo baranay. waxaan qaadan doonaa waxaan inoo save garay horto save inoo dhah no waxaan ku save garsan doonaa cashirkeena koodkan ugu horeeya waxaan ka dhigi doonaa print integer save no dheh. print integer muxuu yahay? print integer waxaa laga wadaa micnaha waa inaan number daawacno. tusaale ahaan haddaan number 4 haddaan aan qorno inuu number 4 inoo daawaco, haddaan userka soo gelinayna haddaan dhahno number 2 inoo soo geli 2 inoo soo geli haddaan dhahno waa inuu 2 daawaca. haddaan dhahno 6 inoo soo geli waa 6 inoo soo geli waa inuu 6 daawaca. So si aan koodkan u qorno waxaan leenahay inoo qor maxaa lagu bilaabay hash include stdio.h. waxaan leenahay integer Soomaa waxaan leenahay integer main labadii bracket inoo for braceska open and close. So waxaan leenahay integer hal number aan qaadanayna waxaan qaadanayna integer a baan qaadanayna. waxaan leenahay print f inoo daawac kuwa waxaan leenahay userkan u bandhigeena waxaan leenahay enter a number soo geli aan leenahay enter a number soo geli si uu new line noo siiyo backslash n aan leenahay oo ah new line si uu noo siiyo. waxaan leenahay backslash n oo ah new line na siiyo semicolon u dambeeya okay baan leenahay. markaasaan wax numberku soo geliyo waxaan leenahay waxaan qaban waxaan leenahay scan f waa lagu qabtaa scan f baan leenahay scan f labadii bracket waxaan leenahay numberku soo geliyay waxaan leenahay percentage d comma numberku soo geliyay aan percentage inta e ku noogu shub numberku soo geliyo userka e inoogu shub baan leenahay waxaan leenahay semicolon. markaas baan noo dawac baleen waxaan leenahay print f. waxaan daawaceynaa marka number buu soo geliyey numberkuu soo geliyeyna e buu ku shubay. marka waxaan leenahay e inoo daawac e waxaa ku jira numberku userka soo geliyey. marka waxaan leenahay the number you have entered waxaa weeye lambarkaa soo gelisa waxaa weeye lambarkuu soo geli intuu galaa e buu galaa e baan daawaceynaa. lambarkaa soo gelisa waxaa weeye percentage d backslash n inoogu dar comma lambarkaa soo gelisa waxaa weeye e noo daawac. egaas waxaa ku jira lambarkuu qofka soo gelay bal aan eegno. markaasa waxaan leenahay return waxba ha soo celin baan leenahay markaasaan waxaan leenahay run baan leenahay yes baan leenahay. wuxuu yidhi enter a number soo geli waxaan leenahay 6 enter the number you have entered is 6. okay mar kale aan tijaabinaynaa run enter a number 100. the number you have entered is 100 waa sax. koodkan waa maxay? waa numberkan soo gelino inuu noo soo daawaco waxaa la rabaa print integer. waa ka soconeynaa
كود كلام قرينا كود كلام واحد وحنا قلنا يا إنه فور بيج عصب كنترول شيفت إن كود كان وحنا قلنا يا add to number إن لما number مسكو دري كرنا إن لما number مسكو درنا إنه save جري كنترول S حي إنه بحسا add to number إنه بحي add to number نام إنه بحي add to نام dot C save كنا عن شرحنا واحد يربل الآن كانوا حوالي add to number add to number معناه حوالي إن صارهان 4 أنسوق لنا سيدا كله عندنا 4 كان سوق لنا نقول دره إنه كدره 5 أنسوق لنا أم 5 أنسوق لنا وجوابتنا سيو 9 إن لبض ترى سوق لنا لبض استرا أرش كدرنا كده بجوابتنا سيو أنا رجنا بلا سجنا حنكو بلا بينا hash include stdio waa studio input output dot header inoo xir bracketkii markaas ama caleenaanay integer main labadii bracket enter open close brace kana fur marka waxaan qaadanaynaa integer waxaan qaadanaynaa ko first aan u bixinaynaa numberka koowaad comma kan labaad waxaan u bixinaynaa second aan u bixinaynaa comma iyo meeshii la isku darayay iyo meeshii marka la isku dar lagu shubay sum iyo wadarti markaasaan userkan u bandhigana waxaan leenahay print f enter to number waxaan leenahay enter to number to add so gil laba number si la isku daro /n so gil laba number si la isku daro leenahay semicolon markuu soo geliyo waan leenahay scan f inoo qabo waxaan ku qabanaynaa scan f aan leenahay scan f bracket kala furayo iyo double quotation key markaasaan waxaan leenahay wuxuu soo geliyo waxaan leenahay ampersand waa laba number soo bilaamaano laba aan percentage laga rabaa laba percentage d aan laga rabaa laba percentage d meena waxaan leenahay comma wuxuu soo geliyo mid kugu horeeyo waxaan leenahay fast inoo geli fast soo qorin arbaan ka tagay fast inoo geli comma midka kale uu soo geliyana second inoo geli semicolon baa leenahay inta markaasaan waxaa leenahay wadarta sum waxay la mid tahay waa fast lagu daray labada tirada koowaad oo lagu daray plus second semicolon markaasaan waxaa leenahay inoo dabac marka hadda print f waxaa leenahay the sum of integer number tirada wadarta tirada la soo geliyay waxay la mid tahay equal baa leenahay waxaa leenahay percentage d /n waxba soo ma kordhi waa new line waa kasii karnaa waxaan ugu baahanana waxay tahay inuu na siiyo sagarka hoose inuu new line na siiyo si ay baashu si fiican loogu arki karo waa qurxin waxaan leenahay new line ina sii kadib waxaan leenahay comma inoo daabac sum waxaa ku jira labada tiro wadartoodu waatan waa sum si walbaa nahnay sumtan waxaa ku jira waa labadan tiro waa second plus first waa labada tiro la isku daray sum waay sum madaan daawacno sum waxaa ku jira waa labadan tiro la isku daray labadan tirona userka soo geliyo userka labada tiro soo geliyo to numberkan waa labadan baa inoo kala gelaya marka waxaan leenahay semicolon baa u dambeeye enter baan leenahay markaas aan waxba ha soo celin return aan aragno bal run xaqad mo yiri
fast baa qaldan fast sound qaladna ma aha ma u qornay fast estaba dhaxda ku jirta saas weeye fast ahi qad balna aan eegno waa sax marka wuxuu yiri enter two number to add soo geli laba number si la isku daro waxa inaan 6 enter 7 isku darbal wuxuu yiri the sum of integer number is 13 lixdooda ku dar 13 waa wiil balaan marka la tijaabino waxa leenaanay soo geli laba number waxa leenaa 10 enter 10 enter labada tira soo gelisay marka la isku daro waa 20 10 ku daro waa 20 sax koodkan labaad wuxuu ku saabsanaa add two number sidee laba number la isku daraya haddaan ku darno mid saddexaad waxaan leenahay control shift n page cusub inoo fur lambarkeenu saddexaad waxaan ka dhigaynaa odd or even number inoo save garay horto control s odd or even sidee loo sameeyaa dot c ana sila egnable odd or even odd micnihiisu waxa weeye waa kisi maaha kisi even waa dhaban micnaha haddaan odd soo geliyo odd waa 1 3 5 7 waa tirada kisiga ah even waa tirada dhaban waa 2 4 6 8 10 waa tiradaasi marka sidee loo sameeyaa waxaan rabnaa markaan soo gelino 2 inuu dhaho waa odd markaan 3 soo gelino inuu dhaho waa 2 markaan dhahano markaan soo gelino waa inuu dhaho waa even markaan 3 soo gelino waa odd inuu dhaho waa kisi aan rabnaa marka inoo qorbal waxaan leenahay hash include marwalba waa hash include kan email kan waxaan waa asfaraga ma hada hal xaba ka tagdid inoo ma shaqeynay koodkii waxaan leenahay hash include stdio .h header markaasaan waxaan leenahay main bracketkii inoo fur markaasaan waxaan leenahay integer name number baan rabnaa soo maaha integer name baa leenahay baa qaadanaynaa marka waxaan leenahay userkan unba dhigana waxaan leenahay printf soo geli number baa leenahay enter n number soo geli baa leenahay markaas waxaan leenahay backslash n number buu soo gelinayaa number buu soo geliyo baan scan f baan ku qabanaynaa waxaan leenahay scan f numberkuu soo geliyey waxaa inoo gelisaa numberkuu soo geliyey inoo geli name inoo geli markaasa waxaa leenahay if baan isticmaalaynaa waxaa leenahay if statement waa isticmaalanaa if haddii name ampersandal to ay la ekaato 0 waxaa leenahay 0 print f waxaa daawacdaa even number daawac waa even inuu daawac backslash n simikalan waa muhiim inuu daawac lc haddii kale print f waxaa daawacdaa odd inuu daawac return bal aan eegno koodkan return 0 bal aan eegno yes wuxuu yidhi mar walba waa markuu kad wuxuu guri number 8 baa error ka jira calaamadaas guduudan hoos baad imaanaysaa meeshaan baad ka fiirinaysaa wuxuu yidhi error n undeclared kuwa hore name baa inta kusoo sheegnay intana waxaan u qoran n
انت waxa laga rabaa waxaad declared waxaad kor soo sheegtid inaad gelisid name aba laga rabaa intuu ku ahaado waxaad kor soo sheegtid inaad gelisid markaas waxa leenahay yes leh wuxuu yiri enter a number soo geli waxa leenahay 5 baan soo geliyay 5 wuxuu yiri waa odd waa sax number kale aan soo gelinayna enter a number waxa leenahay 10 wuxuu yiri waa even waa sax waxaan soo aragnay sida integer loo sameeyo tirada numberkan gelino sida nagu soo bandhigi lahaa sidoo kale waxaan soo aragnay odd number aan gelino inuu waa odd tusaalahaan aan dhahay add number inaan laba number aan isku darno sidoo kale waxaan soo aragnay odd iyo even number cashirkeeni lesson 2 inta sayiduna joogaya sidoo kale lesson 3 waxaan ku qaadan doonaa kood badan oo ku saabsan sida loo raadiyo triangle iyo koodad badan oo dhamaan baan ku arki doonaa cashirkeena lesson 2 intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waa Sikri Maxamed iyo CS team oo idin leh la socosho wanaagsan